السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ما نحسن تعوضي ملك سود من على جوكتان وأتكم حسنتك من الشنك سود بريتانكينا أدوتكم حسنتين أدوات سبتين سوري وهذا هتظهروا جوكتان أدوات ما حسنت تعوض سودو سنت هذا الكليت تابن كتك سعرك تما يعني عوان قوة وحوي هاي ويل سوماليين ويوتيوبر أو هايستب بقول تطبيق توان كون أو سبسكرايبر أو لا يسلم عمر أو كم ذي يوتيوب جوهري سومالي يوتيوبرز جوهري الرهان تكون واقعين وجبيهم بتشوفين يوتيوب عوان كان كاركتان وحوين عمر الشار أما وأوجانش الشانل كلا هذا رهانتي والشانل كلوجود عليه الشانل مدة الصومالي ده يعني وقت حاضر كان جرا يلا مركز الأساسية عمر وحوي ويل يعني دت كموتيفيشن هذا أو صدق كلا ليرجليد النورالات أو حقدت كوسوق بيا أو عذكرة أيا ورستي ولكن يسلم عمر oo ku nool dalkan Netherland Norway baan ku ogaa laakiin Netherland uu ku maranaya waqti xalalkan waraysi laga qaadayo Netherland buu joogaa markaas wuxuu ka wareysanayaa runtii Umar Inshaar yani sababaha YouTube-ka uu joojiyay iyo waxyaabaha uu isaga daayay iyo waxyaabaha uu yani runtii ku kalifay inuu joojiyo YouTube ayuu ka wareysanayaa waxyaabo badan oo YouTube-ka yani Soomaalida ku badan oo ka hadlaya yani Yasmin Umarna wuxuu haa dadka ugu horeeyay yani xoog soo gudbiya warar laga yaabo inaad wariga maqalba soo gudbin jiray barnaamij loo oran jiray oo daawan jiray xitaa aan YouTube ku jirin yani YouTube xitaa aan haweysan jirin 2015 17 uma maranayo YouTuberada maanta Soomaaliya ugu cadcad inay jireen markaan daawan jiray dadka YouTube soo samray buu kamid ahaa isaga iyo Ismaan Hoos oo nin la oran jiray hatar boqol dheeraad maraya iyo Shaayib Arbag nin la oran jiray iyo way badan YouTube-yada waqtigaas qarad shaqood iyo intii soo gaadhay run ahaantii Suldaanka TV iyo Caweyska Dalmar iyo waqtigaas YouTube-ka ugu shan 2015 ay ahaayeen ugu dambeyn sanadkan 2019 ka horaantiisii buu gaaray 100,000 oo subscriber oo yani xaqiiqi yani hadafkii ugu sareeyay YouTube ugu sareeyay yani marxaladda stage-kii adigu laga bilaabi karo in shirkadda YouTube ku aqoonsato oo yani several bari tan lagu soo diro oo lagu maamuso yani qof si toos ah ugu diiwaan gashan shirkadda YouTube aad noqoto taas markay dhacdooyinku ka sheekin jiray waxa kamid ahaa wiil u dhashay dalka Mareykanka oo hate comment ama commentiyada ayda yani dartood nolosha uga dhacay isu daldalay kulay qisada waan daawaday waxa kamid ahaa waan daawaday qisooyinkaas commentiyada loo soo bixin jiray hate-ka sidoo uu sameeyay ayuu bulshada uslaha ugu jawaab ay ugu dambeyntii isaguna noqday qof yani dadka caaya kadibna markuu dadka caaydi isaga taageerayaasha dhexmarisay ayuu ognahay wadamada caalamka policy bi leeyihiin YouTube-ka inay wax kasta ka soo qorto Soomaalida inaan lagu xisaabtamin laakiin waxa dhacday YouTube-ka laga xiray oo mariyay markaas isagu sheegay mara ilaa 500,000 mariyay oo YouTube-ka shirkadu ka xidhay oo waa yani suspended policy oo wala dacwo report badan baa laga gudbiyay ugu dambeyn YouTube-ka laga xidhay YouTube-ka marka laga xidhay wuxuu sameystay YouTube kala labaad markuu sameystay sidii si laag bulshadu caay jiray oo dadka commentiga caayda soo qoratay wad iska ogtay marka Soomaalida comment caay ku soo qorat soo qaatay commentigoodi hebel waa taasi tiraado way kugu sii wadayaan kadibna Soomaalida ay oran dadka dhan weeyaan iyada taas u jirto commentiyada dadka u jawaabi jiray kii labaadna waa laga xidhay kadib uu baxsaday yani gurigu isku soo xidhay wuxuu sameystay haddana qaldanin Instagram buu sameystay Instagram-kii buu live ka soo gali jiray Instagram ka soo gali jiray xitaa dadku ku caay jiray yani ninkii wuxuu noqday dhimir qisooyin caynkaas uu ka sheekin jiray ugu dambeyn Yasmin Umar isaguna waxa ku dhacday sababtii oo kale wuxuu sheegay in wax soo baadho waqti geliyo ugu yaraan 5 saacadood 6 saacadood inagu dadkeena Soomaalida waxa soo qaatan way iska dhib yihiin ognahay wax laga yaabaa history ka bixiso warbixin yar Soomaaliya inaad yani aad maxaa la dhahay aad samayso laakiin intuu luqadda carabiga qoro oo Soomaali loo bedelo oo hadana video la diyaariyo la edit gareeyo title loo sameeyo tablet waqti la soo geliyo ayaa waxa dhacday in markaad muuqaalkii soo gelisay hawada lagu dhaho oo waad soo koobiyay channel-kaasan ku soo aragnay waad soo xaday in lagu dhahdo dadka qaar xitaa wuxuu leeyahay aflagaadiyeen maca Soomaaliga waxba ka qaldan igu yiraahdeen markaas waxaan ka dareemi karaa Yasmin Umar inuu ku dhashay sidoo taariikhda ku sheegay xagar dheer hadaan qaldanin inuu ku dhashay kadibna uu Carabaad tagay ugu dambeynna uu Norway tagay haddana uu Netherland joogo yani
oo aanu inta badan Soomaali aad ugu soo dhex jiray iyadoo taas jirto ayaa dadkii uu wuxuu soo gudbinayay feedback ka soo noqday horta kulli waxaad waqti soo gelisay time siisay hagaajisay baadhay marka lagu aflagaaday dhibaatada taas way leedahay way ognahay taas way iska dhib badan tahay iyadoo taas jirto ayaa haddana dadku way kala duwan yihiin way kala qalbi duwan yihiin moogtahay dadka qaar waxa jira dhib kasto soo gaadha sagaad kasta iyadoo la caayay marka qaar wax kasta lagu leeyahay iska aamusto oo ka socoto laakiin waxa u malaynayaa mala wiilka waxa saameyn ku yeeshay qisada uu ka sheekinayay wiilkaas Mareykanka u dhashay oo comment loo soo qoray darto YouTube looga xidhay kadibna uu waashay kale ayuu tiyo kale ka sheekay ka warwaray uu yani ka fakiray markaas uu YouTube joojiyay hadaba qisadan horta waa qisada marka runtii in laga hadlo aad u mudan oo aad u muhiim ah yani dadkeena Soomaalida in is dhiirigelino dadka qaar noo gudboon baa jira runtii dad maalan yani soo gudbiya oo wax aad ka faa'iideysan aan jirin baa jira hadana YouTube koodu kala kacsan waxaan ku 100,000 iyo dheeraad daawanayaan hadana dadkii wax soo gudbinayeen caayo ilaa YouTube waan joojin taasna dhibteeda leedahay horta aad baan uga xumay Yasmin Cumarna wuxuu kamid yahay dadka yani waqtiyada kamid ahaan jiray role model daawan jiray YouTube mu jiray marka daawanayay runtii barnaamijka la yiraahdo waxyaabo laga yaabo inaad ogeyn soo gudbin jiray vlogs ku sameyn jiray yani dadka maanta Soomaaliya vlog ugu haysta vlogs u duba vlog ka qurux badan 100% soo gudbin jiray YouTube-kiisa gala soo eega 3 sano ama 2 sano ka hor u diyaarin jiray iyadoo taas jirto walaal qaali horta waxaan ku leeyahay isdhiibin noloshna isdhiibid maaha community-da Soomaalida way waxaan ku mid iska ka taageero baxa ku go'on marka qaar baajiyo meesha ka xigta ku go'on laga yaabo markuu meelaha kaaga soo baxan ku go'o anuu kula kaftamayneed waxba rumoodey markaas horta hada wada run maaha markaas waxaan ku leeyahay saaxiibani jabin isdhiibin ma qurux badna oo ma wanaagsana inaad isku dhiibto yani community baa laga soo qoray wax wanaagsan maaha haddana Soomaalida dadka kale yani ma haystaan diin ma haystaan dad yani isxakameyn kariya maaha waa dad iimaankoodu yar iyo dadka yani aan diinta islaamka haysan ognahay markaas laga yaabaa adigu inaad waxaan ku iska tukato waxaan ku Ilaahay isku xidhnaata Ilaahay inta xuniga qabo intii wanaagsan Ilaahay soo xaadiri markaas imikana waxa rakinayaan barnaamijyada bartay ka sii wado horta aad baan boqolka ka xumay aad iyo aad waan ugu xumay runtii wax wanaagsan ma aha in qof waqti galiyo wax in raado ma wanaagsan ma qurxoon in lagu raado ma wanaagsan wax la wanaagsan ma aha aad baan ugu xumay runtii Soomaaliya waxaan leeyahay dadkeena waxna soo gudbiyo wanaagsan aan dhiirigelino anigu ku dhiirigelino saaxiib hambalyan ku leeyahay hore u socon ku leeyahay mar walba hadii soo jeesan YouTube halka si bilow saa ku sheegay walaalkeen marba hana la ogaado walaalkeen yani xumaanta aan iska dayno Soomaaliya wanaagga qaybta wanaagga aan u badano qaybta wanaagga aan ka fakirno wana qisa aad muhiim runtii yani dadka Soomaalida heerka ka taagay dadka يعني وحسوق بهيرك التاجين ويان dad badan wanaagsan wax ku commentiisa u qurux badan ku soo qoray way jiraan ku xasana marka inta xunta wanaagsan ku dhaafan qolay saaxib aad baad ma hasday saaxib maqsaduna ala joogto ku ma hasday kamid shii maqsad biritaankiina muuqaalka xigeenka ku kulmi doono bye bye